dhibaatada nooga jirta waxay tahay hooyadeen 6 nin iyo 4 iyo 2 naagood ee guriga noogu soo galay. waa gartay anakoo iska fadhino casho ka sameysana hooyadee marka madbaqada ay ku jirta maamadeyda marka nimankii nin ka mid ah arada nala degan aan nimanka keensaday markuu keensaday marka boo dagaal yar naga dhaxdhacay wax yar yani isku buuqalmeen soo dilay oo dharka ku soo jideexay waxaan dhahay saxaawiyeen meesha soo dhahay inii intaan ka sii adeegan kawniga siinaya waa gartay marka boo maamadu isku soo buuqeen waan ka soo kordho dambeeska waa gartay marka maxaa soo marka in dhibaatadaas nala geyso idinka anaka maamaan la degneed oo iska soconay safarnay من يمن إلا أسكاليمان إلا مصر أفر عروره تمامد واديقول وإذا يسكعيدين أصحابنا ويجيهين واقرت مركا ويل كذا رونا عنك وشقين عيي مركا وطنك عن صوغ النوجيز ووحول ويل كينا هاي إلى ليمس المهم إسكفة للاك العقا يعني سينا ماس هاي إلى ليو بحي مخسروا مركا لحي أبو صادو وشقين ويل كي ويل كو أصطما مركا سواء كل عنا ويلك مركوك وحدا نكان أو مشقين عيو ده ويلك كيرا. مركي هوري هالكي كتميدان. أبو أنا كي يمن عن زوجني يمن عن دجنين يمن عن كإيمان الدجاج أو صباحني. واقرتي مركا أبيهن هالكوكو سوقي مركا. أبا هرت أبيهن يمن وجوغا وكحيرين هاي هرت الكوكو صباحو لا أي هاي. واتها واحدين سوق رمضي أو صوماليا مجران مركا. أبو هرت أني ومركي دجال كدعي أني جوار جوجني marka wiilashu waxay nimanka waxay tusteen intaan wax rabaan naga soo sameystaan waagar marka ani wiil kamid wiilasha intumaaya wiil kamid ay fakiyani wiilasha dhibaatada idin geysanaya wiil kamid ay fakiyay gabar kale oo maxay ahaydeen oo dayuuf nooyada socotay sidoo kale madaxii mid ka jiriyeen marka way ku kordhayeen way ka hoos baxday badanka labadeen u oran masaajid lagu tukanayo cisho anako ooyeen oo wadiga oo dharka noogu jideexayaan wadgalnay wax noo soo baxday waa weynay askarta anakeedana sii xirtaba markii abo horta guriga ay ka xirteen albaabka ay ka xireen oo hooyaday habeenkeeda maqashi ee dhaawacmatay maalinteeda kala duhurkii laga saaray guriga intaas dhan ee ka albaabka ku taagnaayo eedoo dhaawac 24 saac ku soo kornoqonay waa gartay marka boo aan horta markaas meesha ma ahayn tagna qismiga meesha askarta anakeena xireen markaan hooyadeedii markii aan ogaaday inay xidhan waxa u mooday in yani min dili kaliyo kale oo hooyadeed dhimatay ana hadal askarta hadal weeyga qorweysay markaan ka soo baxay maxaydeen jeelka 2 maalmood aan ku jiray 2 habeen 2 maalmood islahaan ku jiray waa gartay marka aan ka soo baxay hooyada oo ku jirto waa wiitii arinta dhan ee wadiga ka sheekaysto dhinig soo ii dilay asina aga badan ay dileen way ugu soo noqonay maalintii oo dhan way ugu soo noqonay anoo dhaawac ay sidii sababta xumo u dhimatay khaalis aan hadda soo amara ilaah u raxmado hooyo insha Allah taala waxa iga warantaa ilmihii kale walaalaha dhaawac soo gaaray iyaga xaaladooda horta abu ilmaha yarka dhaawac yar iska gaartay ween kareysteen oo qabay uu ugu yar laakiin hooyadana hadda nafteeda baxdo haddana ninki anakoo hadda meel aan joogno Soomaalidu dadka noo joogto oo noo joogto meesha wadanka oo haddana tahdiid lagu haayaan aan baxeenaba cabsi aan ugu jirto aan soo galayna cabsi aan ugu jirto waa gartay iyaga marka hadda ka waran dadkii dhibaatada idin geystay dawladda wax ma ka qabatay abooda ninka wax ma laga qaban karo waa lii xiray wuu xirnaa 2 maalin marka ciidaha laga fasaxay marka waa la daayay maxay idin sheegeen marka waxay ku daayeen dawladda dalkaasi sababtay ku daysay maadaama dhibaato idin geysteen mala ninkan dambi ma lahayna leeyahay waxaan aan hooyaday yani uma jeedinaya meelkaan oo yaal inay daliil oo yahay oo caddeynaysa inuu asid dilay ma xaqiiq wax ka sii xaqiijinayna asid dilay keenana dhahooyeen waa gartay marka wax hadda gurmad idin ku yimid ma jiraan marka aboola Soomaali weyn dadaan oo imaado wax kale nooma imaan Soomaali kama wax ma qaban karto waa gartay marka safaaradda wax ma ka tiri marka xaaladiina safaaradda Soomaalida ee dalkaasi ma kala hadasheen dhibaatadiina ma u sheegteen wax dhow way ogay safaaradda inay la socoto laakiin safaaradda qiimo iyo wax siyaaso ma jirto safaaradda aad iska fadhiso waxba ay sameeyeen wallahi boota dhaawac ay kareysteen ana ka jiro dhaawac oo qof gacanta iga soo gaaro ma kala waa kareysteen waa gartay wax gurmad ah bani aadamnimo idin keenay maadaama
hooyo allah raxmad ay geeriyootay haddana aad tihiin ilmo yaryar oo guri wada jooga marka yaa idin saaciiday marka idinka أبو سومالي لنساعدو إذن بوحبا انت إيكيين ومصاريد بأيك عن توفتو فاي وجيغا وانا بيلك استناوض وضو واقرتي soomaalida ku dhageysanaysa hadda maxaad u sheegi lahayd waxaa u sheegaya yani haddaa Soomaaliin oo yani ay jeceshiin dadka Soomaalida waa ina masaaridan ay ka argoosatiin haddaa u tustiin inay ka cabsanaysiin weligeed wax manila tusaanka maanta noola galay aadinka nila gal doonaa